waa ku siinayaa sadaqadii aad bixisay dhammaan Soomaali weyn oo idil inta ku nool gudaha iyo inta ku nool dibaddaba waxaan naftayda iyo naftiinaba kala dardaarmayaa barnaamij بسم الله الرحمن الرحيم وردك دقة وكسب بحي حفيز كرئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالية أيا رئيس الوزراء حسن على قيرة وهو حلكي كقاضي سدح وزير إسلام كانوا مقعاوي سدح وزير وعصب رئيس الوزراء جمهورية فدرال الصومالية مدن حسن على قيرة أيا سدح وزير حلكي كقاضي إسلام كان سدح وزير وعصب ومقعاوي حلالكاس بناanaaday رئيس الوزراء ayaa ugu horeyn xelalkii ay hayeen ka qaaday wasiirada kala ah mudane Yuusuf Garaad Cumar wasiirkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Marwo Qadra Axmed Ducaale wasiirkii ganacsiga iyo warshadaha iyo mudane Cabdi Faarax Saciid Juxa wasiirkii arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta رئيس الوزراء حسن على قيرة ayaa wareegto uu soo saaray oo ku magacaabay saddex wasiir oo cusub oo buuxinaya xilalka banaanaaday ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 97 farqadiisa saddexaad ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay qodobka 97 farqadiisa labaad xarfaha a iyo ba ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay qodobka 100 xarfaha a ba iyo a ee dastuurka meelgaarka ah markuu arkay howlaha baaxadda leh ee horyaal xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu tixgeliyay talada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu garwaaqsaday baahida loo qabo magacaabidda wasiirka ganacsiga iyo warshadaha wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta wuxuu magacaabay qodob koowaad mudane Maxamed Cabdi Xayir Maaree waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha koowaad 2018 sidoo kale mudane Cabdi Maxamed Sabriye waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 Janaayo 2018 sidoo kale Danjire Axmed Ciise Cawad waxaa loo magacaabay xilka wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4 bisha koowaad 2018 wasiirada cusub ee la magacaabay waxaa la farayaa inay si degdeg ah ula wareegaan xilalkooda qodobka saddexaad magacaabidani waxay dhaqan galaysaa marka uu saxiixay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo uu saxiixay waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya intaas ayay ku eg tahay warkii degdeg ahaa ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa mahadsantiin